jamhuuriyadda Somaliland marka la joogo waxay leedahay taariikh ku qoran baal dahaba taariikhdaasi waxay soo bilowmatay markii aynu ka qaadanay Ingiriiska sanadii 1960 waa maalinkii aynu qaadanay xorriyadda ee aynu ka qaadanay Ingiriiska waxaana muhiim ah ardayow inaad barato taariikhda waa muhiim waayo meel kasta waxay ku faantaa taariikhdeeda iyo dhaqankeeda waxa muhiim ah inaad baratid dalkaaga masalada aroortan maantada aan ku mino ku maamuusi calankani milgihiisu weyn yahay milicsiga cadceedan aadmigu ka maarmine dhulka oo mugdi ah bay milicsaa iftiinko ifka muunadaysaa maasha allah dhaha 18 May waa dharaar mid weyn oo mawlahay isiiyee waa maalintan bari calankayga midabka leh iyo magaca tawxiid waa maalintan muday ee maalin maandeer heeryadii malignayd waa maalintan riday ee malkada dhulkayga mahad eebe weeyaan wadamada gartay gobonimada yaqaan waaqsada xornimo inaan gaarugay geeygi gaste guushayada jecel abaal guularan gaarugaya abaal guularan abaal guularan gaarugaya xuskiya maydaan dhignaa dhammaaniyo waa xasuus baldugo gurigaada ka shabaysilkaaga dhimantay tiri reeraha dhowrkaga maqnay dhifiya weeyanama ma jiro xuskiya maydaan dhignaa dhammaaniyo waa xasuus maanta oo kale waxay nagu waajibaa inaynu muuneyno oo aynu kor u qaadno calankeena barakaysan ee jamhuuriyadda horey galmudug gundaha dhigato talada guracani gunaad ka tagtay hadduu galabtaba xor yahay geygii waxaan leeyahay nimankay nagu waashay ee koonfurta ay naga dhammaanla aan leenahay bar hore inta ka goonayna ammaan geliya hadduu farasku inuu weyn yahay iyo wehel dad moodayso galab baa waraabuhu dilaa ama la waayaa dhinac kale haddaan niga tuso indhab uga sheekeeyo dharaartay hortaba foolatay inay dhashow gaadhay dumar dhowrahoo waxaa u yimid adan ka dheerayno allo u dhib yareebay ducada wada dhahayeeno macallimiinta iyo maamulka iskuulkaasi oo halkaasi ardayda kula hadlay waxa ay ardayda ku booriyeen isla markaasina ay si farxad leh ula dardaarmeen dabaaldega 18 May iyo in ay isku diyaariyaan imtixaanada ku soo foodka leh eedin may weyn xusana laakiin sidaynu xusana si sharaf leh xusana sida maanta iskuulkeena ka socota oo ah waa maalin la muujinayo qadiyadda Somaliland waxa inaga mamnuuca maalintaasi inaga oo faraxsan inay nooga ekaato maalin jamacsiya inay nooga ekaato miya fiicanta ardaydaasi safka daabuurka maalin walba waxaynu ku xusaynaa jamhuuriyaddeena Somaliland war Somaliland ay diinaato inaan qayrkaa iyaan ku nacsiin dalkani qoloqolo maaha dalkani waa qaran uu tashaday waa dhaqaaqay insha Allah taala maalin dowla waxaynu ku farxi doonaa dhigaynu maqli doonaan iyadoo la ikraafay baasaboorka inaad waddan kasta ku mari karto insha Allah.